aad baad mahadsantahay runtii waxaa jirtay sheeko aad u qosol badnayd oo buugga bartankaga jirtay markaad ka hadlaysay habdhaqanka burburiya guurka sheekadii aamusnaanta waqtiga dheer qaadatay aad iyo aad qodub waxa weeye aan ugu magac daray habdhaqamada burburiya cilaaqada wax cilaaqada wanaajiyo qurxiyana way jiraan wax burburiya cilaaqada adduunyana way jiraan saamada sheekay marka aamusnida dheer baa ka mid ah ila kala aamusnadan waxaa inta badan keenta marar fara badan dadka iimoodina isku mid yihiin oo kale anigu aan ahay curad xataa da-da meesha qof kaga jiro saameyn bay ku leedahay saad wada noolaanaysa ka qof guri dambaysa ama curad inta badan waxay jecel yihiin attention badan bay soo heleen marka qofka uu cadhoodo waa lasoo sasabaa soo qof marka adigoo jecel lagu soo sasabo markaad cadhooto qof kaloo isna markuu cadhoodo la sasabo jecel markaad kala cadhootaan yaa isukin keenay dadka la aamusnaysa sheeko marka waxaa jirta aamusnida la xidhiidha dheer marka nin baa isagii xaaskiisa isara qabtay gabadhi marka waxay gadaalka iyo qiinsatay ama qiratay inay ninkeeda ka gardarnayd deetana way u timid way raali gelisay u diiday wuxuu yiri kula hadli maayo laba maalmood baa la kala aamusay iyadoo la kala aamusay baa ninkii waxaa u timi fariin degdega oo leh safar degdeg aad galaysaa ganacsigiisa la xidhiidha inuu baxo ayay noqotay meeting aada muhiim u ah etana dee laba maalmood lama wada hadlinay islaantiina uma tegi karay sidee ula hadashay warqad buu qoray wuxuu ku qoray wuxuu yidhi balan baan leeyahay safar degdega ayaan gelayaa 5 aroornimo ikici may 4 aroornimo ikici 5 aroornimo baan baxaya sariirta dhinacay ka seexanaysa buu dhihi kadib iska seexay gabadhii xilligii la seexanayay markay soo gaadhay qolkii bay soo gashay waxay aragtay odageedii hurda sariirta dhinaceedana warqaday taalo subaxii uu ninku kacay 10 aroornimo iyadoo cadceed iyo dhulka wada cadaysay deetana waa cadaaday wuxuu yidhi maxay sidan u samaysay maxay ii kicin weyne shaqadayda hadda waan ka daahay adugu aad loo cadhooday deetana wuxuu yidhi gurigiina dama joogtay oo shaqadayda ba iska aatay xaggii hoose guriga laba dabaq buu ahaa xaggii hoose u degdegay si uu gaxwigiisa usoo samaysto deetana wuxuu arkay miiska warqad taalla oo ay ku qoran tahay gacaliye waa 4 aroornimo kac ilan hadal ma jirin safriintiisa wuxuu u gudbiyey aamus iyadana dee aamus warqad bay u gudbisay soo maxaa cutubkan qodobka markaa qorayay waxyaabaha muhiimka waxa weeye kala aamusnidu aamusnida dheer mararka qaarkood waxay abuurtaa mushkilad ka weyn mushkiladii marka hore jirtay marka in lagu baraarugsanaataa